aadan cabdulla cismaan waxa uu sanadkii 1908 uu ku dhashay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaana waxbarashada uu ka bilaabay dugsi ay lahayd dawladda Talyaaniga ee gumaysan jirtay koonfurta Soomaaliya isagoo yar ayaa waxa dhintay labadiisii waalid waxaana uu ahaa nin wax isbaray waxa uu aad u akhriyi jiray buugaagta gaar ahaan kuwa laga qoray taariikhda iyo siyaasadda waxaana uu ku hadli jiray afafka Soomaaliga Carabiga Talyaaniga iyo Ingiriisiga waxa uu ku biiray ururkii gobonnimo doonka ee dhalinyarada ee magaciisa loo soo gaabin jiray SYL sanadii 1944 ilaa 1946 waxa uu ahaa xogayay ururka SYL u qaabilsanaa magaalada Beledweyne waxa sidoo kale uu noqday gudoomiye ku xigeenka golihii maamuli jiray gobolka Mudug 1954 ilaa 1956 bishii May sanadkii 1958 waxa loo doortay madaxweynihii ururka SYL isagoo sidoo kale ahaa afayeenkii baarlamaanka ee ururka waxa uu aad si weyn ugu ololeeyay madax banaanida Soomaaliya isagoo safka hore kaga jiray ololihii gobonnimo doonka ee SYL ay waday kowdii bishii Julaay ee sanadkii 1960 oo ahayd maalintii gobolada koonfureed ay madax banaani ka heleen Talyaaniga ahaydna 4 maalmood kadib markii maxkamada Ingiriiska ee Somaliland iyana ay madax banaanaatay 26 bishii Juun ee sanadkii 1960 oo sidoo kale ah maalintii Israaca midnimadii waqooyi iyo koonfur aadan cabdulla cismaan waxa loo doortay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay yeelato dawladdii cusbeyd waxay wajahday duruufo dhaqaale iyo aqoon darro maadaama Soomaalida waqtigaasi waxbaratay aad ugu yaray dalka mana jirin dalal saaxiib la ahaa Soomaaliya oo ka caawin karayay dhaqaalaha iyo dhismaha ciidamada waxa kaloo hogaaminta madaxweyne aadan cabdulla cismaan aadan cadde saameyn ku yeeshay kala shakigii koonfurta iyo waqooyiga iyadoo aftidii lagu ansixinayay midnimada oo la qabtay bishii Juun ee sanadkii 1961 ay dadkii reer waqooyiga ahaa diideen 60% waxa kaloo bishii Disembar ee isla sanadkaasi dhacay inqilaabkii fashilmay ay hogaaminayeen saraakiil dhalinyaro ahaa oo ka tirsanaa ciidamada oo ka soo jeeday goboladii waqooyi kuwaas oo inqilaabka ay sameeyeen uu salka ku hayay saluuga ay qabeen deegaanada ay ka soo jeedeen oo arkayeen dawladda aanay ka helin saami wanaagsan oo u qalmayay sanadkii 1964 Soomaaliya iyo Itoobiya waxa dhex maray dagaal iyadoo ciidamada Itoobiya ay isku dayeen inay qabsadaan dalkii cusbaa ee Soomaaliyeed laakiin uma suura galin isku daygaasi dawladdii madaxweyne aadan cabdulla cismaan waxay taageero ay ka raadisay wadamada reer galbeedka kuwaas oo dhabarka u jeediyay laakiin ugu dambeyn waxay taageero ka heshay midowgii Soofiyeeti oo hubeeyay ciidamadii qalabka sida isla markaasina tababarasiiyay aadan doorashadii dhacday bishii Julaay ee sanadkii 1967 waxa kaga adkaaday ra'iisul wasaarihiisii Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa uu aqbalay natiijadii ka soo baxday doorashada isagoo noqday hogaamiyihii ugu horeeyay Afrikaana ee si dimuqraadi oo nabada u wareejiya xilka iyadoo waqtigaasi qaaradda Afrika ay ka dhacayeen inqilaabyo isla markaasina awoodda ay haysteen hogaamiyayaal aan laga guulaysan karaynin markii xilka uu wareejiyay ayaa waxa uu iska fashay oo ka shaqaysan jiray beer uu lahaa oo ku taalay deegaanka Janaale oo koonfur kaga beegan magaalada Muqdisho sanadkii 1990 waxa uu ka mid ahaa kooxdii loo yaqaanay Manifesto oo ku baaqday dib u heshiisiin xilligaas oo dawladdii Soomaaliya ee militariga ahayd ay daciiftay kadib markii jabhada ay la dagaalamaysay ilaa dabayaaqadii sanadkii 1978 aadan cabdulla cismaan waxa la dhigay xabsiga oo uu ku jiray ilaa dawladdu ay dhacaysay 26 bishii January ee sanadkii 1991 waxa uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya 22 bishii May ee sanadkii 2007 isagoo da'diisu ay ahayd 98 jir dawladdii uu hogaaminayay madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf Axmed ayaa waxay ku dhawaaqday 21 maalmood oo baroor diiqa isla markiiba waxa loogu magac daray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed